airportkii Boosaaso waan ku naaloonayay in waqti dheer ah inuu dhamaado oo maanta dhamaaday oo aan ku faraxsanahay inaan soo booqano khaas ahaan meeshaan taaganahay waa meeshii hadda silka ugu dambeysay 5400 oo mitir weyn waa 5 kilomitir iyo 400 oo mitir 2600 waxa weeye silka kuma wareysana gadaasheeda jidhaa oo mustaqbalka international baa loogu talagalay waxaan soo booqanay airportka Boosaaso oo dhamaaday dana furi doono 8 bisha January intii aad shaqo aad u adag oo fiican ayaa la qabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadda iska leh waxaan kaloo u mahadcelinaynaa intii airportkaas ka soo qayb qaadatay ay noqoto shaqaale ay noqoto shirkad ay noqoto wasaaradii madaxda dawladda oo madaxweynuhu ugu shaqeeyay sidii loo soo wada shaqeeyay Ilaahay waa mahad iska leh dadka shaqadaas ku dhiirraday kuna soo faraacday ilaa uu dhamaadina doon mahadcelinayna jazakumullahu khayran waxa ay tahay horta kambanuhu guuri maayo oo joogay dabcan badan iyo rajo badan ayuu leeyahay taasi inta dadweynaha u sheegaya waxaan aad ugu mahadnaqayaa maareeyaha Bashiir Muuse oo xog ah oo xogaalnimo ah oo daacad ah siiyay si fiican oo waray waqtigii hawsha caadiga ah oo qaban lahaana uu annaga nasiiyay ilaa iyo hadda meesha aynu taaganahay oo dawladaha meelihii lagu baargaraynayay ah ilaa halka ugu dambaysa uu nageeyay intaana uu noo waxay waa u mahadnaqayaa waxaa leenahay khayr Allah siiyo ilaahay wax kula qabto qodobka kale oo ah oo ugu dambeeya waxa weeye anigu hadda war waxayna Bashiir qudhiisu halkan aqoon u baahan hawlaha dayuuradaha shaqadoodu waxay u baahan aqoon waxaana warka hayn haddii saani jirin aan ku boorreynaa dadkii hawshan qaban lahaa oo dhalinyarada yaacaysa hala geliyo tababar fikrad maqan hadday markii hore ahayd oo lagu dhinac wadin hadda hala bilaabo waxaan faraxsanahay annaga isla Puntland lama soo booqano airportka caalamiga ee Puntland Boosaaso aad farxad noo gelinaysa runtii waxaan hambalyo iyo salaan u marinaynaa hawada madaxda ka shaqeynaysay garanaysa airportkan halkaas soo gaarsiiyay wasaaradda gaar ahaan wasaaradda iyo hay'adda ISIS shaqo fiican qabtay hada shaqada gacanta ku haya iyo madaxweynaha dawladda Puntland qayb weyn ka qaatay farxad weeye maxaa la yiraahdaa ismadii kale to hadalkoodii ayay nagu filantahay anagu waxaan halkan u nimid waxa weeye waxa ku filan in badan dad baa waxay dhahayn garoonka la dhisi maayo garoonka kan weeye garoonkii waa kan waa dhisan yahay waxa weeye feeskii ugu horeeya waa dhamaaday mar dhowna madaxweyne baa imaanaya insha Allah oo maxaa ku feesteenayna shaqaalaha ay waxa ka shaqeynaya airportka kullu dhamaan madaxweynaha insha Allah bismillaah kariim salaam baanu leenahay waa salaameynaa meeshiisa ku salaaman yahay inta dibna dhamaatana isaga hadee hawl ku lahaa oo ku shaqalaha inta harsana isaga ku shaqale waa salaameynaa insha Allah wis arag iyo imaantiisa aan sugaynaa Allah noo nabad keeno